ma al-shabaab baa tahay waad xijaaban tahay. muslimiinta waddanka Kenya ayaa aad uga careysan maanta arrin uu sameeyay wasiirka waxbarashada waddankaas George Magoha. wasiirka waxbarashada waddankaas oo meel wareysi ku bixinayay ayaa wariyaal badan oo su'aalo weydiinayay ayaa gabar xijaaban oo muslimad ah oo ka howlgasha TV-ga la yiraahdo NTV waxay damacday in ay su'aal weydiiso. deedna wuxuu ku yiri halkee ayaad ka timid, halkee ayaad ka socotaa, yaad matashaa, yacni warbaahintii ayaa matashaa. haddii aad warbaahinta al-shabaab matashid kuu jawaabi mayo. Who are you representing? Because if you are representing Al-Shabaab, I will not answer you. Which TV station? NTV. gabadha wejigeeda ma uusan muuqanayn, laakiin waxaa muuqanayay wejiga wasiirka oo sidaas leh iyo hadalka ay isdhaafsanayeen. arrintaas waxaa aad uga carooday gudoomiyaha maxkamadda sare ee muslimiinta waddanka Kenya Hassan Nadow, isagoo oo ku sheegay ficilka uu sameeyay wasiirka waxbarashada waddanka Kenya ficil cunsurinimo ah oo gabadha xijaaban ee muslimadda ah lagu xadgudbay xorriyadeeda. arrintan oo ay aad uga caroodeen hogaamiyaasha muslimiinta waddanka Kenya ayaa hogaamiyaha maxkamadda sare ee muslimiinta waddanka Kenya Hassan Nadow waxa uu ka codsaday madaxweyne Uhuru Kenyatta in wasiirka waxbarashada waddankaas xilka laga qaado maadaama uu ku kacay ficil cunsurinimo ah oo gabadha xijaabkeeda uu ku xadgudbay. sidoo kale wuxuu ugu baaqay midowga ururada warbaahinta ee waddanka ka jira in ay arrintaas tilaabo ka qaadaan. wasiirkan waxbarashada Kenya ee ku xadgudbay gabadhii wariyaha ahayd ee muslimadda ahayd ee xijaabneyd ayaa waxaa qorayay qaybo badan oo ka mid ah warbaahinta Kenya.